kulankan iskaasho ay isugu yimaadeen dowladaha Puntland iyo Jubaland oo ay kula hogaaminayeen madaxweynaha Puntland Said Cabdullaahi Deni iyo madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo ay ka qayb galeen wasiirada labada maamul ayaa ka dhacay magaalada Boosaaso intii u dhaxaysay 18 ilaa 19 bishan Janaayo. shirkan waxa uu qayb ka ahaa dadaalada lagu xoojinayo iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ayaa qoraalka lagu bilaabay. shirkan ayay sheegeen in looga wada hadlay iskaashiga dhinacyada siyaasadda, amniga, dhaqaalaha, maamulka, deeqaha, arrimaha bulshada federaalka dalka iyo dib u eegista dastuurka iyo sharciyada saameynta ku leh dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya waxaana ka soo baxay qodobo ka kooban 16 qodob. qodobka koowaad dowladda Puntland iyo Jubaland waxa ay isla garteen ilaalinta xoojinta midnimada Soomaaliya iyo hirgelinta nidaamka federaalka si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya. qodobka labaad shirku waxa uu ka tacsiinaya una ducaynaya dhimashadii iyo dhaawacyadii ka dhashay qaraxyadii muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho. qodobka saddexaad labada dowladood waxa ay isla garteen in la iska kaashado horumarinta dhaqaalaha, arrimaha bulshada, la dagaalanka argagixisada, isweydaarsiga xogta amni iyo dambiilayaasha. waxa ay ka digeen khatarta ka imaan karta in dhaqaalaha lagu bixiyo magaca Soomaaliya loo isticmaalo dana siyaasadeed oo waxa u dhimi kara xasiloonida dalka. qodobka afraad ayaa waxa lagu yiri waxa la isla gartay in labada dowladood ay isdhaafsadaan khibradda maamul si loo tayeeyo hay'adaha dawliga ah. qodobka shanaadna waxa lagu sheegay waxa ay labada dowladood isku waafaqeen in ay jiraan caqabado dhaawacaya hirgelinta nidaamka federaalka dalka oo ka imaanaya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxayna isku raaceen in la xoojiyo dhamaystirka nidaamka federaalka dalka oo ku dhisan dastuurka, wadatashi iyo arrimaha iyo sareynta sharciga iyagoo iskaashi kala yeelanaya dowladaha kale ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. shirku waxa uu isla gartay in nidaamka dib u eegista dastuurka ee ay wado dowladda federaalka ah uusan ahayn mid ku dhisan hanaanka qabiyatirka dastuurka sida ku xusan qodobka 133 iyo 134 ee dastuurka ku meel gaarka ah. labada dowladood waxa ay isla garteen in loo baahan yahay in ay wada tashi ka yeeshaan madaxda dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah hanaanka dib u eegista dastuurka si looga heshiiyo qodobada masiiriga ah. dib u eegista dastuurkuna u noqdo mid loo dhan yahay. waxa uu shirku qirayaa in dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya aysan diyaarin jawi ay ku dhici karto doorasho qof iyo cod ah iyadoona aan laga heshiin nidaamka doorashooyinka dalka. amniga wadankuna faraha ka sii baxayo ayaa la sheegay. sidoo kale waxa labada dowladood ay cadeeyeen in sharciga doorashooyinka ee ay ansixisay golaha shacabka ee dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya uusan marin wada tashiyo loo baahan yahay ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah isla markaana ay ku jiraan qodobo dastuurka aan waafaqsanayn. waxaana shirku ugu baaqaya aqalka sare ee dowladda federaalka in ay ka shaqeeyaan sidii ay isugu keeni lahaayeen dowladda xubnaha ka ah dowladda dhexe iyo dowladda federaalka si loo helo xal lagu wada qanacsan yahay. qodobka 8aad ayaa lagu sheegay shirku waxa uu garowsan yahay in sharciga shidaalka iyo kan saxaafadda ay ansixiyeen golayaasha dowladda federaalka ah ee sharci dejinta iyo xukuumaddu uu khilaafsan yahay mabaadi'da federaalka dalka, habraaca sharciga loo meel mariyo iyo dastuurka ku meel gaarka ah. qodobka 9aad labada dowladood waxa ay ka digayaan in la siyaasadeeyo mashaariicda horumarineed taas oo sii murginaysa xiriirka dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah iyagoona u arkay warqadii wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya uu soo saaray soona baxday 23 Diseembar 2019 laguna sheegay in la sameeyay xafiis xiriirka deeq-bixiyeyaasha aysan ku haboonayn hanaanka dowladnimada. qodobka 10aad Puntland iyo Jubaland waxa ay ka soo horjeedaan in la siyaasadayo horumarinta arrimaha bulshada awoodahaas oo ah kuwa ay leeyihiin dowladaha xubnaha ka ah si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka ah. waxa uu shirku si gaar ah u dhaleecaynaya in bixinta shahaadooyinka iyo deeqaha waxbarasho ee dibadda lagu maamulo aragti siyaasadeed oo guracan. qodobka 11aad labada dowladood waxa ay isla garteen in la joogteeyo shirarka iyo wada tashiyada iyadoona laga qayb gelinayo dowladaha kale ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya ee ka jira dalka si looga tashado arrimaha masiiriga ah sida la dagaalanka argagixisada, maamulka, deeqaha waxbarashada, kheyraadka, dhamaystirka dastuurka iyo ka tashiga hanaanka doorashooyinka ee baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya. qodobka 12aad labada dowladood waxa ay cambaareynayaan cunaqabatayntii la saaray duulimaadyadii Jubaland taas oo ay ka dhalatay xaalad bini'aadanimo oo khatar ku keentay dadweynaha reer Jubaland waxaana ay ka digeen cawaaqib xumada ka dhalan karta maamul xumaanta hawada Soomaaliya.
qodobka 13 labada dawladood waxa ay ugu baaqayaan dawladda federaalka ah inay joojiso faragelinta guracan ee ay ku hayso dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah ee Soomaaliya sidoo kalena xorriyadiisa ay dib ugu soo celiso wasiirkii amniga Jubaland mudane Cabdirashiid Xasan Cabdi Nuur Janan 14 dawladda Puntland iyo Jubaland waxa ay ugu baaqayaan dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka ah in la isugu yimaado shir wada tashi si looga wada hadlo arrimaha cakiran ee dalka qodobka 15 dawladda Puntland iyo Jubaland waxa ay ku heshiiyeen in ay dhisaan guddiyo ka shaqeeya hirgelinta heshiiska iskaashiga ah ee arrimaha la dagaalanka argagixisada horumarinta dhaqaalaha tayeynta hay'adaha dawliga ah iyo arrimaha federaalka dalka qodobka 16 ee ugu dambeeyay ayaa lagu sheegay shirku waxa uu mahad celinayaa UN-ka EU-da AU-da Arabic League IGAD USA UK Norway iyo dhammaan hay'adaha caalamiga ah ee ka shaqeeyay arrimaha bini'aadanimada iyo horumarinta Soomaaliya sidoo kalena waxa ay uga mahad celinayaan wadamada ku deeqay ciidamada AMISOM kaalinta ay ka qaadatay xasilinta dalka waxaana ugu tacsiinayaan wiilashii iyo gabdhihii kaga geeriyooday iyo kuwii kaga dhaawacmay howlgalladii dib u xasilinta Soomaaliya sida ka muuqata 16 qodob ee soo baxay labada maamul midkoodna kama uu hadlin lacagtii dhawaan uu joojiyay ra'iisul wasaaruhu ay ku jireen labada caasimadood ee labada maamul goboleed ee Kismaayo iyo Garowe Hawraartiro Production ayaa naga daawanaysan Hawraartiro Production fadlan taabo subscribe oo ka mid noqo saaxiibada halka Hawraartiro Production